soo dhawaada saaxiibayaal. Sheekadeena maanta waxa ay khusaysaa sheekada yar teenager lagu magacaabo Khalid Mursal. Khalid waxa uu ku dhashay 2003 xaafadda Richmond, London. Khalid aabihii waa taksiile. Khalid waxaa la dhashay laba gabdhood lagu kala magacaabo Camila iyo Qadra. Waxaa qoyska ugu weyn Camila oo 16 jir ah, halka Khalid yahay 14 jir, Qadrana tahay 10 jir. Khalid maalin maalmaha ka mid ah asigoo u socda iskuulkiisa waxa uu wadada kula kulmay nin bedeli doona jadwalka noloshiisa oo idil. Tony waa drug dealer streetka ka ganacsada drugska. Tony waxa uu raadinayay ilmo underage ah si uu kaga faa'iideysto haynta hubka iyo waxyaalaha sharci darrada sida drugska oo kale. taa oo fududeynaysa in meel walba si fudud uu businesskiisa kaga gadmo maadaama ilmaha underage-ka booliiska aysan baarin. Khalid aabihii Mursal oo ah aabbo leh halgaman nolol maalmeedka qoyska iyo qarashaadka waxbarashada, waxa intaa ka badan ay ku adag tahay in uu ku fargareeyo, ayaa taasi waxa ay sababtay in Khalid uu gacan u galo dad dantoodu tahay danaysiga. Khalid oo markaa 14 jir ah ayaa waxaa lagu daboolay ama lagu saracaadiyay qarashaad tiro badan iyo in shopping loogu sameeyo goobaha ugu qaalisan fashion-ka oo wax walba ay yihiin brand, iyo sidoo kale in loo iibiyo taleefanada modelka ugu dambeeyay. Pocket money fiicanna la siiyo uusan weligii aabihii ku arkin ama uusanba ka helin. Taasi waxa ay sababtay in wax walba ay la fududaadaan Khalid, maadaama shaqada loo sheegay inuu qabanayo ay tahay in uu alaab boorso yar loogu shubay uu haynayo marka uu iskuulka ka soo baxa. Waxay shaqada Khalid sidaa u socotaba waxaa ugu dambeyn arrintii ku baraarugtay hooyadii oo aragtay habeenada ka mid ah wiilkeeda oo saq dhexe daaqadii guriga kasii dhacayo una socda in uu streetka ku iibiyo waxyaalihii markaa shaqadiisa looga dhigay iibintooda. Taasi waxay keentay in Khalid hooyadii iyo aabihii ay arrintii ka qariyaan booliiska maadaama labadooda ay noqonayaan laba qofood oo qeyr mas'uul ah. Cunugan sidaa lagala wareegay ayagoo midda ka cararaya ayaa waxa ay isku dayeen in wiilkooda si kaloo xal ah ay uga eriyaan wadadan halaaga ah. Taasi waxay noqotay mid aan suuragelin maadaama Tony tiimkiisa in sharciyada u yaala ay tahay ku biiris mooye aysan bixitaan jirin, hadduu qof baxayana uu ku baxayo oo keliya geeri. Ugu dambeyn qoyskii Khalid waxa ay ku qanciyeen Tony in ay siinayaan qarash intuu rabo si uu wiilkooda u nabadgeliyo. Taasi ma aysan noqonin dhammaadka qorshaha, oo mar walba Tony qarash la siiyo waxa uu kasii dalban jiray qarash intaa ka badan maadaama wiilka yar uu hayo xogta Tony, taasi oo uu ka baqayo in booliiska markaa uu ku wargeliyo. Waxay sheekadu sidaa isu daba jiidataba waxaa soo idlaaday maalmihii nolosha ee Khalid oo markaa streetka loogu wacay Kelly, waxaana soo gabagabeeyay historigiisa oo idil yar sidiisoo kale teenager ah markaa streetka ku cusbaa. Habeen saq dhexa ayaa waxa uu ku toogtay wadada xaafadda Richmond.